kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalka qodobada ugu waaweyn warkeena waxaa ka mid noqonaya marka maalin ilaahay keeno qodobaa la jabiyaa labaa la jabiyaa lagama hadlo markii si dan gaar looga leeyahana qofaa waxa arkay oo gacanta maanta dhan taagayso uu dhahayso inaan hadlaa rabaa xildhibaan waaye xaqu uu leeyahay aragtidiisa iyo inuu ummadaan iyo wixii uu qabay inuu sheego lama siinayo mikrofoonka qodob 29 loo xeer hoosaadka loo adeegsaa halkaas qodob bisa marka laga isticmaalo xeer hoosaadka oo qofka ayagu farta haday taagaan gudoonku arko asaga wuxuu asaga rabo haday sheegayo uu jeclaysanayana waa siiha qofkan waxa uu arkay inay diidahay ama asaga culays ku keenay haduu yahayna wuxuu leeyahay sharciga iyo ogol kuma siinayo xogta xilka qaadista maha salaada oo sii xoogeysatay xildhibaanada golaha shacabka oo mooshin ka keenay gudoomiye aadan madoobe xasan sheekh oo wajahaya xaaladii ugu adkayd iyo wararkii ugu dambeeyay ciidamo Itoobiyaan ah oo dalka soo galay ayaan warkan ku falanqeyn doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay xogta xilka qaadista maha salaada ayaa sii xoogeysatay xilli warar kala duwan ee ka soo baxayaan kiiskaasi taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Mahad Maxamed Salaad ayaa markan wajahaya xaaladii ugu adkayd ee dhanka siyaasadda xilli warar kala duwan ay ka soo baxayaan mooshinno culus oo ninkan laga diyaariyay Mahad Salaad ayaa wajahaya eedeymo culus oo ay ugu horeyso in hay'adda ay ku fashilantay helidda akhbaraadka iyo xuraanka weerarada iyo qaraxyada shabaab ka geysanayaan caasimadda iyo xiriyaha ciidanka iyo sidoo kale in taliyamaha salaada uu shaqadii ka eriyay saraakiil aqoon-yahano ahaa oo taliska in muddo ka soo shaqeynayay arrimaha kale ee maha salaad lagu eedeynayo ayaa ah in uusan ahayn shakhsigii ku habboonaa hogaaminta hay'adda sirdoonka ee dalkan Soomaaliya balse Mahad Maxamed Salaad oo arintan muddo sanado ah ay soo dabajiitamaysay ayaa hadda taagan kala bayr ama isgoyskii ugu muhiimsanaa oo xildhibaanadu xilka ay uga qaadi lahaayeen kaas oo wixii ka dhacay kulija Ziyaad oo taliska nabad sugidda raadad kala duwan ay soo galeen xasan sheekhna shalay lagu wareejiyay feelalka dukumeentiyada qaraxii ka dhacay Ziyaad iyo in saraakiil nisa halkaas ay galeen tuhunna u galay raadka ku aadan qaraxii halkaasi ka dhacay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale lagu eedeynayaa in hay'addii sirdoonka uu dhex keenay ajaanib muddo 5 sano ka hor laga nadiifiyay hay'adda taliskuna si gaar ah u madax banaana balse hadda uu muuqdo in ay ku dhex milmeen ajaanib shisheeye oo sirdoon ah taasoo maskaxdii iyo mimrigii waddanka ay ku fadhiyaan ajaanib arrintaasna ay keentay in taliska loo jeediyo eedeyn xoogan Mahad Maxamed Salaad ayaa sidoo kale lagu eedeynayaa in hay'adan oo isaga maamulo ay ku kacday xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah iyo in jeelasha ay yaalaan dad lagu soo eedeynayo kiisas kala duwan oo been abuur ah oo ay ugu weyn tahay shabaabnimo iyo arrimo kale taasoo keentay in talisku eedo xoogan uu ku wajaho gudaha iyo dibadda caalamka maalmihii ugu dambeysay ayay soo xoogeysatay xiisadda Mahad Salaad iyo in meesha laga saaro kadib markii xildhibaano badan oo golaha shacabka ka tirsan ay baarlamaanka kulankiisa ka hor sheegeen in ay fashilmeen taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha militariga isla markaana loo baahan yahay in meesha laga saaro arrinta ayaana sii xoogeystay markii xildhibaano ka tirsan golaha ay diyaariyeen mooshin culus oo ka dhan ah taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed xildhibaanada golaha shacabka ayaana mooshinkan ka keenay Mahad Salaad u gudbiyay aadan madoobe balse ninkii aadan madoobe ayaa diiday in golaha la horgeeyo mooshinkaasi taasna waxay dhalisay in xildhibaanada ay ka caroodaan tallaabana ay u qaadaan gudoomiye aadan madoobe inuu ku fashilmay hogaanka baarlamaanka madaxtooyada Soomaaliya ayaa cadaadis iyo xoog basaartay in Mahad Salaad uusan hortagin baarlamaanka lana fashiliyo mooshinkiisa iyadoo xitaa la kulantay xildhibaanada diidan taliyaha nabad sugidda kuna amartay inay joojiyaan taabadelkeedan lacag ay qaataan balse xildhibaanadu aad u badnaa ayaa tira ahaan villa Soomaaliya ku badatay inay xalliso mid walba baahida dhaqaale ee uu sheeganayo hadda waxaa baarlamaanka hor yaala laba mooshin oo isbarkan mid waxa uu ka yaalaa Mahad Salaad oo horey looga gudbiyay midka kalena waxa uu ka yaalaa aadan madoobe gudoomiyaha golaha shacabka oo lagu eedeynayo fashil maamul gudasho la'aan shaqo iyo in golihii uu ka dhigay meel isagu waxa uu doono ka sameysanayo
xildhibaano badan ayaa laga arkayay kulamadii u dambeeyay ee golaha iyagoo si toos ah u dhaleecaynaya gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madoobe iyo inuu ku tagrifalayo xeeroosaadkii iyo dastuurka dalka uu siiyay awoodda inuu golaha hogaamiyo waxayna xildhibaanada qaarkood ay soo jeediyeen in dib u eegis lagu sameeyo howlaha gudoonka iyo shaqada qaranka ay u qabanayaan xildhibaan Faysal Jeyte oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya oo hubinta la hadashay ayaa sidoo kale faayin ka bixisay dagaal kala dhaxeeya gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe xildhibaanadan ayaa shaaca ka qaaday in gudoonka ay isku hayaan kaliya ilaalinta xeeroosaadka golaha iyo dastuurka dalka sida ay hadalka u dhigtay Faysal Jeyte ayaa gudoonka baarlamaanka ku eedeysay in uu dana gaar ahaaneed u adeegsanayo shuruucda u degsan taasina ay ka soo horjeedo wax dagaal ah oo gooni ah oo shakhsi ah oo naga dhaxeeya ma jiraan kaliya waxaan isku haysanaa xeeroosaadkan noo qoran iyo dastuurka aan ku soo dhaaranay aan ka shaqeyno iyo maalin hal la jabiyo maalintii dan gooniya laga leeyahayna hal la isticmaalo ayay tiri xildhibaan Faysal Jeyte waxaa sii kordhaya tirada xildhibaanada ee mooshin ka gudbiyay sida xildhibaanadanba ay sheegtay waxayna sidoo kale raacisay hadalkeeda in gudoomiyaha golaha uu markasta ay ku xadgudbo ku dhaqanka xeeroosaadka golaha shacabka isla markaana uu jebiyo qodobo muhiim ah sida ay ku dooday maalin ilaahay keeno qodob ama labo ayaa la jebiyaa lagama hadlo markii si dan gaar ah laga leeyahay qof waxa arkaysa la siinayo mikrofoonka iyo qof gacanta taagay oo gudoonka uu arko in uu culays ku yahay oo laga tagayo ay tiri mar kale Faysal Jeyte dagaalka xildhibaanadan iyo Aadan Madoobe ayaa soo shacbaxay qamiisii la soo dhaafay kadib markii uu ka xiray mikrofoonka xilli ay ka hadlaysay kulankii baarlamaanka kadib markii ay adeegsatay erayo adag oo ay markaas ku calaanatay gudoomiyaha Aadan Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madoobe ayaana hadda wajahaya culays siyaasadeed oo dhanka baarlamaanka uga imaanaya iyo gudasho la'aan shaqo oo ku aadan howshiisa uu ku fashilmay xildhibaanada ayaana diyaariyay mooshin ka dhan Madoobe maadaama dhammaan isagu hor istaagay mooshinno kala duwan oo laga keenay xukuumadda taliyaasha ciidamada iyo sidoo kale mas'uuliyiin dawladeed oo madaxweynaha ka mid yahay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana markan wajahaya xaaladii ugu adkayd ee dhanka siyaasadda waxayna wararka qaarkood ay tilmaamayaan inuu ku jahwareersan yahay xal u helidda mushkiladaha iyo caqabadaha siyaasadeed ee dalka taagan taasoo keentay in xildhibaano badan oo ka tirsan golaha shacabka ay si dadban iyo si toos ahba uga soo horjeestaan rabitaanka Aadan Madoobe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale baajiyay dhowr kulan oo xildhibaanada ay lahaayeen sabab la xiriirta in ay wadaan mooshinno culays siyaasadeedna isagu ku yahay taasoo keentay in dhinaca kale arrinta loo gediyo waxayna villa Soomaaliya hadda raadinaysaa istiraatiijiyad iyo xal kale oo ay ku gaabiso khilaafka siyaasiga ah ee taagan iyo xildhibaanada mooshinada sabjooga ah wada taasoo siyaasad ahaan ay ku fashilmi doonto dowladda xasan sheekh maxamuud oo hoggaan ku hayo oo ku milantay gudoonkii baarlamaanka saaxiibayaal waa naga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo